Asalaamu calaykum. Halkani waa kanalka Baraarug. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena taxanaha ahaa ee wadan xalqadiisa 6. Barnaamijkan waan alaaba ku soo qaadano taariikhda dalalka caalamka. Sanadkii 1493 Christopher Columbus waxa uu sahmiyay jasiirad yar waxa uu ugu magac daray Maria de Antigua oo ahaa ninkii xukumayay Sevilla. Antigua dalkani waxa uu ka kooban yahay laba jasiiradood oo waaweyn oo lagu kala magacaabo Antigua iyo Barbuda oo qiyaastii isu jira 40 kiiloomitir. Sidoo kale dhowr jasiiradood oo yaryar oo ay ka mid yihiin Green, Long, York iyo Redonda. Dadka rasmiga ah ee degan dalkani waxa lagu qiyaasaa ku dhawaad 100,000 oo qof. Antigua waa caasimadda wadanka halka Barbuda ay tahay magaalada ugu weyn. Dalkan jasiiradda ah ee Antigua waxa gumeystay boqortooyada Ingiriiska. Dalkani baaxad dhuleedkiisa waxa lagu qiyaasaa 108 square miles. Ugu dambeyn, dalka Antigua waxay madaxbannaanidooda heleen 1 November 1981